geela kan oo ahaa geel magac oo ay kula kala wareegayeen beesha Axmed Cumar oo ka tirsan beelweynta Warsangeli iyo beesha Ciise Maxamuud ayay maanta kula kala wareegeen degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag. geela kan magta ayaa waxaa lagu lahaa beesha Axmed Cumar oo ka mid ah beelaha Warsangeli oo ay soo diyaariyeen kuna wareejiyeen beesha Ciise Maxamuud. goobtaasi waxaa ugu horeystii ka hadlay odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka beesha Axmed Cumar oo ka waramay say u soo diyaariyeen geelaasi magta waxaana markaasi goobta ku sugnaa isuduwihii hore ee nabadeynta gobolka Sanaag ee Somaliland Xuseen Xasan Karsay waana kuwan say u soo diyaariyeen iyagoo ka waramaya beesha Axmed Cumar oo geela kan halka hooganaya dadkii soo bixiyay ugu sharfan yihiin sida sharafta iyo qiimaha iyo kartida leh oo ay isaga xil saareen magtii ay ku lahaayeen beesha Ciise Maxamuud oo maanta halka ku wada diyaarsan ayagana waxaan doonaynaa mar dhow baan filaynaa inay noo iman doonaan oo aynu ku wareejin doonaa hadalka intaas baan anigu in yar ka bacdi ayaa goobta waxaa soo gaaray oo geelaasu joogay beeshii Ciise Maxamuud ee lagu wareejin lahaa geelaasi magta gacansooda waxaana markaasi geelaasi ku wareejiyay odayaashii beesha Axmed Cumar waana kan sida u dhacday xil wareejintii geelaasi magta oo halkaasi ay ku kala gudoonteen labadaasi beelood beesha Axmed Cumar iyo beesha Ciise Maxamuud. salaatu wasalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. marka hore waxaan salaamayaa beelood sharafta leh halkan maanta ku kulmay beesha Axmed Cumar iyo beesha Ciise Maxamuud labada beelood oo ay ka dhaxaysay mag ay isku lahaayeen taas oo fayskeedii hore wajigii hore jifidii ay hore u baxday wajigii labaadna maanta aan halkan isku wareejinay oo kala wareegayo ayaan halkan aad iyo aad soo dhaweynaynaa. halkan waa degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa odayaasha waayeelka iyo cuqaasha waxgaradka Ciise Maxamuud runtii ay aad noo dhex martay arrin aad iyo aad u wanaagsan xiriir wanaagsan شورنا سفيان تلا سفيان سنة ما تسوي شنطنا هذه يمكن هل كنا بتقولوا لبعض بيرود وهلا كان هذه ليش ليش أحمد دومنا هي مقطع وهاي الشباب مقطع شركة ولا هاي هي مقطع دي كنا هل كان على كتير يسمى حمود جمي odayaasha iyo guurtida iyo galboodka intaba waa salaamayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib maanta waxaan halkan isugu nimid waa magaalada Ceelbu waa u jeedaan waa dooxadii Dambilis waxaanu maanta halka ugu diyaar garownay inaanu ku wareejino magtii ugu lahaayeen beesha Ciise Maxamuud annagoo ah beesha Axmed Cumar waana magdherartii jifidiina horey u baxday sidaa darteed waxaan maanta shirka labada beelood beesha Axmed Cumar iyo beesha Ciise Maxamuud. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. war la qabaa xiisma laho sida hadda laga sheekeeyey marxuumkaas dhintay oo shilka gaari ku dhintay ayaana dhex maray bini'aadankaas ilaahay abuurana qolaba mar baa wax dhex maraaneen waxa Soomaalida ku maamaadaa meesha xoolo maraan baa xeer maraan sida hadda uu ka hadlayay caaqilka waxay la tahay haddee bini'aadanka mar baa wax u bilaamaaneen waji wanaagsan iyo ehelnimo iyo walaalnimo waxayna ku bilaameen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan dhibi inaan dhex marin haddii salaam ka bacdi ballaaran baan u jeedinay wada garab oo Ciise iyo Axmed Cumar iyo Ciise Maxamuud waxaa intaa noo weheysaa geela aadna siisay oo saakay aad ugu wareejiseen waa idinka sugay waana xaq haatan ma garanaysaa annagana naga maqnaa idinkana idinla jiray xaqiisii saakaad ka xaq baxdeen annagana ugu wareejisay meesha salaanta islaamka assalaamu
isku soo wada duubo kala wareejintii kadib ayaa markaasi labadii beelood waxay ku kala tageen maanta farxad iyo reeran iyo iyagoon waxba isku lahayn geelii magta ahaana ay ku kala gudooteen goobtaasi. waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga SBS TV degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag.